halkankii tilmaanaa tusmaadii la soo maray tayayo wax qabashiyo tiirkii xornimaadiyo halkankii tilmaanaa tusmaadii la soo maray halkankii tilmaanaa tusmaadii la soo maray tayayo wax qabadiyo tiirkii xornimaadiyo dambaan kor soo socono maahan laakiin awal aan sii shiidaynay aan arkayna xataa dad waxbarashadii wixii dhamaantay faraha ka qaadan qoriysata inagu soo biirayeen lagu arkayna gobolka isbaarooyinka nagu soo badanayay warcadbadeed oo nagu soo xoogaysanaysay dhalinyarada shaqo la'aanta oo nagu soo badanaysay maadaama wasaaraddu saadar daahir markii loo magacaabay kadib ay boorka ka jaftay hawlahaas oo dhan dhalinyaro fara badan oo sida haddaba aad dareemaysaan iyo kulamada kale aad ku arki doontaan bay waxay ahayd muhiimaddu in dhalinyaradani galmudug aan laga harin maadaama ayagoo caqligii iyo xooggii iyo aqoontii ay isku darsadeen oo la rabo in jiilka kaleete ee deriska la ah ama dunida ay la jaan qaadaan unba sidaas unbay wasaaraddu muhiimadeedu ahayd markaana ay waday maadaama marka sida ay tahay hadda wasiirkii iyo agaasimihii iyo dhalinyaradii iyo professorkii iyo intaan kale saxaafadii iyo gabdhihii aan wada joogno meesha waxaan rabnaa kulamada horta la soo qabtay oo horey aan u soo sameynay maxaa danaha noogu jira koow wax ma laga faa'iiday waxna wax ma ka faa'iidnay dhalinyaro ahaan wax ma ka faa'iidnay wasaaraddu maxay ka faa'iiday media maadaama la isticmaalayo bulshadu say wax uga faa'iiday dareenkeedu siyaabo noqdo bulshadu wax muu aragtay dhalinyarada in wax soo sameyn karto ficil fiican ay sameyn karto hal abuur ay la iman karaan bulshadu ma aragtay inteenan in kale to naga maqan unba wax laga yaabaa media inay ka dhageysteen dadka hadalhayntooda inay dhageysteen in kulamada ka qayb gasheen wasaaraddu inay xog baaris ay ahayd oo ay wax qoraal sameeyeen kulan walba aan isku nimaadno wacyigelinta professorada ay noo soo jeedinayeen dadka aqoon-yahanada noo imaanayay wixii nooga mudana saadaq daahir mire waxaan kala salaamayaa professor Hussein oo runtii ah professor taariikh ku leh dawlad goboleedka Galmudug aan ku xasuusan karnaa xilliyadii Galmudug isqa qabsiga yariska uu soo maray doorkii uu ka ciyaaray in Galmudug ay mid noqoto iyo qiimaha uu ku leeyahay deegaanada Galmudug iyo maskaxda aqoonta Ilaahay ku manaystay inuu shacabkiisa ka qadin aniga ku hadlayo wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportska adigoo ku hadlayo waliba magacii jaamacadda MU adiga iyo ardaydaadaba waxaad leenahay guul ku waara insha Allah annaga sida aad la socotiin ka wasaarad ahaan waxaan soo qaban qaadinay barnaamijyo badan aan uga hadlayno sidii dhalinyaradii ay iskugu imaan lahaayeen waxaan lagu kalifay dad badan baa waxa laga yaabaa inay la yaabaan oo yiraahdaan maxaa soo celcelinay kulamadan tirada badan waxaan lagu kalifay waxa ugu weyn oo ay tahay hadii la helo xog dhab ah oo ka hadlayso sidii ay door uga ciyaari lahaayeen ama ay gool ay uga dhalin lahaayeen hadday noqon lahayd xagga nabadda iyo hadday noqon lahayd xagga isdhexgalka bulshada midkaana waa kulankii saddexaad oo aan ku qabanay iskuulka al-shacab waxaana ugu goleenahay ay naga codsadeen in barnaamijkaas la fidiyo oo aan garab ka siino sida dawladda hoose oo kale wasaaradda arrimaha gudaha hay'adaha ku lugta leh iyagana way nala qaateen ma aha barnaamijka inuu hakaday ahaa ololaha nadaafadda oo wasaaradda ay ku dhawaaqday sida ugu dhawaaqnay baa naga go'an inaan barnaamijkaas wacyi gelino oo aan qabanana jecelnahay ama shir aan saaka la yeelanay qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawlad goboleedka Galmudug arrimaha gudaha iyo dawladda hoose iyo gudoomiyihii gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug waxa isla wada qaadanay annagoo isku mid ah inaan si sharaf leh aan u anbaqaadno nadaafadda gobolka midda kale hartay oo ay tahay dalabaadka noogu yimid banaanka oo kale annagoo siiba baada sportska aan u sheegaya maadaama miitinno badan aan yeelanay goolkii ugu horeeyay oo dhasho wuxuu ahaa in jaaliyadda Sweden oo kale oo dibadda banaankeeda joogto ay soo dhiibayso qalab sports oo dhameystiran oo ilaa heer caalami ah oo ugu deeqday sportska dawlad goboleedka Galmudug dhawaana uu jecel yahay wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportska inay gacantiisa ku soo dhacdo xiriirka Olimbikada Soomaaliya dhawaan markuu halkan soo gaaray asigoo aan tusno garoonka dhismaha inta uu marayo noona ballan qaaday inta hartay inuu dhameystirayo wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportskana dhawaan uu la wareegay qalab ay u haysay wasaaradda waxbarashada qabitaan ka yimid jaaliyadaha banaanka iyo hay'adaha gudaha ah taasi oo looga faa'iideysanayo
in dhalinyarada galmudug ee mid noqoto hal weel kaliyana wax ku wada cunaan hal gogolna ay ku seexdaan hal meelna ay ku duulaan hal gurina ay ku soo wada hoyaan waana mahadsantihiin halgankii tilmaanaa tusmadii la soo maray tayayo wax qabashiyo tiirkii xornimaadiyo halgankii tilmaanaa tusmadii la soo maray halgankii tilmaanaa tusmadii la soo maray tayayo wax qabadiyo tiirkii xornimaadiyo damba aan kor soo socono maaha laakiin awal aan sii shiidaynay aan arkayno xataa dad waxbarashadii wixii dhammaan intay faraha ka qaadeen qoriysata nagu soo biirayeen aan ku arkayno gobolka isbaarooyinka nagu soo badanayay warcadbadeed oo nagu soo xoogaysanaysay dhalinyarada shaqo la'aanta oo nagu soo badanaysay maadaama wasaaraddu saadar daahir mire markii loo magacaabay kadib ay boorka ka jaftay hawlahaas oo dhan dhalinyaro fara badan oo sida haddaba aad dareemaysaan iyo kulamada kale aad ku arki doontaan waxay ahayd muhiimaddu in dhalinyaradani galmudug aan laga harin maadaama ayagoo caqligii iyo xooggii iyo aqoontii ay isku darsadeen oo la rabo in jiilka kaleete ee deriska la ah ama dunida ay la jaan qaadaan unba sidaas unbay wasaaraddu muhiimadeedu ahayd isla markaana ay waday maadaama marka sida ay tahay hadda wasiirkii iyo agaasimihii iyo dhalinyaradii iyo professorkii iyo inteen kale saxaafadii iyo gabdhihii aan wada joogno meesha waxaan rabnaa kulamada horta la soo qabtay oo horey aan u soo sameynay maxaa danaha noogu jira koow wax ma laga faa'iiday waxna wax ma ka faa'iidnay dhalinyaro ahaan wax ma ka faa'iidnay wasaaraddu maxay ka faa'iiday media maadaama la isticmaalayo bulshadu say wax uga faa'iiday dareenkeedu sheeba noqdo bulshadu wax muu aragtay dhalinyaro in wax soo sameyn karto ficil fiican ay sameyn karto hal abuur ay la iman karaan bulshadu ma aragtay inteenan in kale too naga maqan unba wax laga yaabaa media inay ka dhageysteen dadka hadalhayntooda inay dhageysteen in kulamada ka qayb gasheen wasaaraddu inay xog baaris ay ahayd oo ay wax qoraal sameeyay kulan walba aan isku nimaadno wacyigelinta professorada ay noo soo jeedinayaan dadka aqoon-yahanada noo imaanayay wixii nooga mudana saadaq daahir mire waxaan kaloo salaamahayaa professor Hussein oo runtii ah professor taariikh ku leh dowlad goboleedka galmudug aan ku xasuusan karnaa xilliyadii galmudug isla qabsiga yariiska ah uu soo maray doorkii uu ka ciyaaray in galmudug ay mid noqoto iyo qiimaha uu ku leeyahay deegaanada galmudug iyo maskaxda aqoonta ilaahay ku manaystay inuu shacabkiisa ka qadin anigoo ku hadlaya wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportska adigoo ku hadlahayo weliba magacii jaamacadda MU adiga iyo ardaydaadaba waxaa idin leenahay guul ku waara insha Allah annaga sida aad la socotiin ka wasaarad ahaan waxaan soo qaban qaadinay barnaamijyo badan aan uga hadlayno sidii dhalinyaradii ay iskugu imaan lahaayeen waxaan lagu kalifay dad badan baa waxa laga yaabaa inay la yaabaan oo yiraahdaan maxaa soo celcelinaya kulamadan tirada badan waxaan lagu kalifay waxa ugu weyn oo ay tahay haddii la helo xog dhab ah oo ka hadlayso sidii ay door uga ciyaari lahaayeen ama ay gool ay uga dhalin lahaayeen hadday noqon lahayd xagga nabadda iyo hadday noqon lahayd xagga isdhexgalka bulshada midkaana waa kulankii saddexaad oo aan ku qabanay iskuulka al-shacab waxaana ugu gol leenahay ay naga codsadeen in barnaamijkaas la fidiyo oo aan garab ka siino sida dowladda hoose oo kale wasaaradda arrimaha gudaha hay'adaha ku lugta leh iyagana way nala qaateen maahan barnaamijka inuu hakaday ahaa ololihii nadaafadda oo wasaaradda ay ku dhawaaqday sidaan ugu dhawaaqnay baa naga go-an inaan barnaamijkaas wacyigelino oo aan qabanana jecelnahay ama shir aan saaka la yeelanay qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowlad goboleedka galmudug arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo gudoomiyihii gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxaan isla wada qaadanay annagoo isku mid ah inaan si sharaf leh aan u ambaqaadno nadaafadda gobolka midda kaloo hartay oo ay tahay dalabaadka nooga yimid banaanka oo kale annagoo siiba bahda sportiska aan u sheegaya maadaama miitinno badan aan yeelanay goolkii ugu horreeyay oo dhasho wuxuu ahaa in jaaliyadda Sweden oo kale oo dibadda banaankeeda joogto ay soo dhiibayso qalab sportis oo dhameystiran oo ilaa heer caalami ah oo ugu deeqday sportska dowlad goboleedka galmudug dhawaana uu jecel yahay wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportiska inay gacantiisa ku soo dhacdo xiriirka olimbikada Soomaaliya dhawaan markuu halkan soo gaaray asigoo aan tusno garoonka dhismaha inta uu marahayo noona ballan qaaday inta hartay inuu dhameystirayo
wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo sportiskana dhawaan uu la wareegay qalab ay u haysay wasaaradda waxbarashada rabitaan ka yimid jaaliyadaha banaanka iyo hay-adaha gudaha ah taasi oo looga faa'iideysanayo in dhalinyarada galmudug ee mid noqoto hal weel kaliyana wax ku wada cunaan hal gogolna ay ku seexdaan hal meelna ay ku duulaan hal gurina ay kusoo wada hoydaan waana mahadsantihiin صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللي بقى ما سنتا مركو الرئيسة وحرر مركي هورا إلى أن كان إني بروح قدم كاس أنتي مركي هذا هذا كوجر تيمبان ديار سوى إن كان إمام محمود جواب بالي هذا ملائكة وكريمت فرنت أنه حجرسينا يا ملائكة إن شاء الله تعالى وادتك أرمينا الله هذا وادتك أرمينا وحوشنا وادتك أرمينا كاني كقاتان يعني هو مركي اسمها كان وتكسنا إن شاء الله تعالى مركو الرئيسة وزارة سبورتي شرفت بمنا أرين آدي أب مهم يسميسي لأن يرى حق بلشك ياد دقالما لأن يرى دقالت لأن يرى عقلي بلشدة يا عقلي فكر كي يحكينا وحكينت لأن يرى كنتا لأن يرى بلشدة مركي كحماتو بلشدة وحمانيسا لكن هذه بلشدة توسنتها بلشدة لأن توسنتها أغوان عقلي يفكر أي كل شقينا يان بلشدة أنت ذكر ولا توسكرها سنة كي هرانت سحوم ملينا يا أرداد الله جامعة هلا سميها ليري مركا أرداد أي ماذا وحار ما إلى اعتماد الشركة اعتماد وحامش رحي وحأرك أرداد وياه أرك أرداد وأر خطرة والسياسة مركا لفقرايو أر مهمة آدي مهمة مركا سياسة إمامك جامعة إنه أرك سمنت إنه فرقليه وأرين آدي خطرة أرداد هدي مدوان وحقه يعقله مديان ومدى أيها جهيكرة ومدى أيها ماركين وطريقة سحرة كذلك حتى هوس وورهم أنك خلافات بقايو ليسكو مايو أرمى السياسة ليسكو قبتي الدونك والي سقبتا سياسة والو ليسكو هريمادا لكن هذا والي سيا وليسكو سوى نقضا أنا هل بين حسوسنا ممكن يررك هل بين حسوسنا أنا ودي كانوا حنكتي أنا إذا الشرف له وده كان إركاس مريان ودون كان لقاه بيسنا ما قرأتي وحاب بربرك كيري وسخ خبصك يا خلافاتك يدك أهل كانوا من سياسة أقولت ولا هين ما قرأتي أيها سياسة الدولة كي خبص ما شرنا السير دقائن مثل وحنا يعني عيدين يلا ما تسن ورادي عيدين حكارات تسن هذي جراش بعد كشة قيسا جراش كم يا أخ أمريكا تخترك هو هذا ترى تكور مات أوباما ما لقى كل سنة مثلا لقى كل سنة وراني قال شغلي ما عنده ليه السياسة رجع كل شغل رجع سويدية لكن أنا كل السياسيين من السياسيين حتى لو بس فريسين أمريكا سياسة هم دم سيكهلنا شغل ما آذين وما شقي سنين وحمد ضررين مركب نول بالدور كله يا مجتمع لوجه تختارنا كل شغل فرمياري تختارك كهوسي شقي هقب صدا نيكا كورتدا نوصل يا كورتدا نوصل هي يوسف دولة عالي برلمان كده هجلن ما حقيقة سياسي واحد مركا أنك علتنا هيستا وحواي حدود ملهم با يعني حقيقة سوا حدود ملهم قفك سماشة وليه دورك وكأيارك أنت المية كانوا وحلياب كان يعني قلب على قرن أنا ليه هي ما حنكفاية سجل مدوني أنا وأنا جل يعني من وين أعمل أنا قاعد أنا يرمين ما حنكفاية عن كفة إذا في جلمود إن كل السياسيين وهذا هو السياسة السوا كل السياسة كاملة سياستنا أنا السياسة أمبرت وحال البري وحن قاتين ما ذكروا لي هذا urban and regional study هرمرينتا يمجالينتا يهرمركا المجال يتولي أبانتا وذلك جوارتوران نقدا ميرك نقدا يذلك تولين يعني حافظة معمولة ذلك سؤال محيقبتان فيري سياسة وين كبرنا يلا مبر مادس وحجت واحدة اللوجيك وعقلية وما دل برتواي مركب بوديسي إن هذا الحدود هذا دافع سعال قالوا هذا شيء هذا عيتمين هذا أسلوب الأديك سنة إن ضدك حوشتي إن ماركتين وحي أعرفتي إن عبرتي أنا قدبي أنا وحرر إن هل أرني شغل أنا جامعة دي وافر محاسب الدوليين خير ناس الليبان أرنت صوتها تافتي أنا هدينا الوديش أساس يعني جواب بدل ما كبحي كرنا
maado kasta la qaatay arday kasta maxaa u kordhay maadooyinka la qaatay maxay hayeen wax badan baan sheegi karnaa laakiin waa iska soo kooba wax muuqdaan rabaa dadka inaan tuso wax muuqda aniga galkacay markaa imaanayo ma arki jirin dad computer roota ma arki jirin way yaraya qof computer wati qof computer garabka u jiro way yaraya maantana markaan anigu markasta ma dariiqa ma soo maro ma soo baxo haddana waxaan arkaa dadkii dhow computer wata arkay oo meelaha computer la fadhiyo computerka waa bartay fiir waa sanadii bar يعني ما قف بامانة الكمبيوتر هذا يكسلس حتى وحركي دكانات قاركود حتى الكمبيوترين حتى اللي ولا قد داونا في المية أخبار عام كلا قد داونا أنت سو هرمر وين وهني في قرية قادرة هاي إنه ما الكمبيوتر قرب كشتا وهرمر في أنا الجاروة أنا حتى لو سنة لو سنة تنسيكرنا مالك إحنا غرس الكمبيوتر يا أخواني علمي يلوجيك الله هذا waxaan ugu gaari kara waxa waaye in la wada hadlo la isku yimaado shiraka laga doodo qofka ra'yigiisa la siiyo inuu hadlo hal doon baa wada saarnay intaas aan saarnay shacab oo adeegsano aan wada hadalno aan isku imaano waan arrin fiican arrintaan oo kale idaacadaha laga sii daayo dadka wada hadlaan ana waxaan qabaa xataa in sidaan kale fadhiyo la fadhiyo idaacada xataa taas loo hadli karo oo dadka su'aal soo weydiiyaan ayaanteed oo Liibaan iyo Cabdirasaaq iyo si fiican bay sameeyeen dadka waa ka hadalsiin waa ka baxa warkayga وأنا ما سبتي السلام عليكم.